Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirashaaq Daada. Maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah aqoon-yahanadii diinta Islaamka ku faafiyey wadanka Jabaan, Sheekh Cabdirashiid Ibraahim. Sheekh Cabdirashiid Ibraahim wuxuu ahaa aqoon-yahan Muslim ah. Wuxuu 1857 ku dhashay wadanka Ruushka. Intuu noolaa wuxuu u socdaalay wadamo badan oo ay ka mid yihiin Wadamada Aasiya. Sababta uu safaradaas badan u galayna waxay ahayd si uu diinta Islaamka ugu faafiyo wadamadaas, waxayna ku qaadatay sanado badan. Safaradiisii badnaa mid ka mid ah wuxuu ku tagay wadanka Jabaan. Sheekh Cabdirashiid dalka Jabaan markuu gaaray ayuu go'aansaday inuu halkaas ku nagaado oo deegaankiisa ka dhigto si uu diinta Islaamka ugu faafiyo. Sanadkana wuxuu ahaa 1909. Muddo 6 bilood ah markuu joogay ayuu la kulmay dhowr qof oo isugu jira shacab iyo madax dawladeed, wuxuuna u sharxay Islaamka. Kulankaas kadib, aqoon-yahano badan oo dhalinyaro ah oo ay ka mid yihiin saraakiil iyo suxufiyiin ayaa bilaabay inay bartaan oo ay baaraan diinta Islaamka ka hor intaysan aqbalin inay islaamaan. Sheekh Cabdirashiid wuxuu sameeyey dadaal badan si uu u faafin lahaa diinta Islaamka. Wuxuu kaloo la shaqeeyey bulshadii Tataarka iyo madaxdii dalka Jabaan saamaynta weyn ku lahaa. Wada shaqayntoodana waxay dhalisay inay magaalada Tokyo ay ka aas-aasaan masjid ay ugu magac dareen Tokyo. Dhismihiisa markii la dhameeyeyna asaga ayaa imaam ka noqday sanadka markuu ahaa 1938. Sheekh Cabdirashiid sidoo kale wuxuu dalka Jabaan ka aas-aasay bulshadii ugu horeysay oo muslimiin ah, kuwaasoo si gooni ah meel isugu yimaada oo ka wada hadla faafinta diinta Islaamka. Sheekh Cabdirashiid markuu in badan joogay dalka Jabaan oo dacwada Islaamka ku faafiyey ayuu ka ambabaxay, wuxuuna u socdaalay bariga Aasiya, asagoo booqday wadamada ay ka mid yihiin China, Kuuriya, Hindiya iyo dalka Sacuudiga. Kadibna dalka Jabaan ayuu dib ugu soo laabtay, halkaas ayuuna ku noolaa noloshiisii intii ka harsanayd. Sheekh Cabdirashiid wuxuu sidoo kale qoray buug lagu magacaabo Dunida Islaamka, wuxuuna ahaa buug uu kaga hadlayay wadamada uu socdaalka ku maray iyo waxyaabihii uu kala soo kulmay. Sheekh Cabdirashiid wuxuu ahaa socdaale, daaci islaami ah, aqoon-yahan waxgarad ah, qoraa iyo mufakkir. Waxaana si weyn looga xasuustaa inuu ka mid ahaa kuwii hormuudka u ahaa inay diinta Islaamka ay dalka Jabaan gaarsiiyaan. Sheekh Cabdirashiid Ibraahim wuxuu geeriyooday 1944, waxaana lagu aasay qabuuraha muslimiinta ee Tama oo ku yaala meel u dhow magaalada Tokyo ee dalka Jabaan. Daawade, muuqaalkan haddaad ka heshay like saar, subscribe-na ha ka ilaabin. Wassalaamu calaykum.